howlgalkaani oo ahaa mid laga fulinaya deegaano hoos yimaada degmada Buulaburde ilaa iyo Burweyn ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha guutada 5aad qaybta 27aad Korneel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakay waxaana qayb ka ahaa taliyaha guutada 4aad Korneel Sanay Cabdulle Nuur taliyaha ciidamada Hiil Walaal Kumaanda Maxamuud Cumar Faarax howlgalka ayaa intii uu socday ciidamada xoogga dalka kuwa AMISOM iyo ururka argagixisada Al-Shabaab oo dhinaca ayaa waxa uu dagaal saacado badan qaatay ku dhaxmaray deegaanka BNF halkaasi oo nabadiidka looga dilay 24 halka looga dhaawacay tiro intaasi ka badan howlgalka ayaa markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta 27aad Generaal Axmed Maxamed Maxamuud Tareedisho oo maalmahani howlo shaqo u joogay degmada Buulaburde faahfaahin ka bixiyay howlgalkii ay ciidamada ay ka fuliyeen deegaanada Burweyn ilaa iyo Buulaburde waxaan soo bilownay howlgal soconay muddo 4 casho ah oo ka soo bilowday xamar ilaa iyo maxaan ku iraadaa meesha la yiraahdo Jalalaqsi Buulaburde ilaa iyo maxaan ku iraadaa meesha la yiraahdo Jimbile howlgalkaas waxaa maxaan ku iraadaa ku midoobay ciidanka qaybta 27aad ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM runtii howl wanaagsan ah meeshaas ka dhacday cadawguna dhibaato badan la gaarsiiyay cadawguna ma ahanba mid hadda meelaha maxaan ku iraadaa hadda awood badan leh wuxuu meelaha la warwareegaa miinooyin marba meel la cararaa alxamdulillah howlgalkii wuxuu u dhacay sidii aan loogu talagalay sidoo kale cadawga waxa ku gaaray khasaaro weyn dagaalkii ka dhacay maxaan ku iraadaa soona Burweyn ilaa iyo maxaan ku iraadaa BNF waxa halkaas looga dilay cadawga waxa uga dhimatay 24 iyadoo khasaaro weyn oo kale uu soo gaaray sidoo kale maxaan ku iraadaa howlgalladii ka soo bilowday deegaanka Xaaji Cali Xamar ilaa Xaaji Cali ilaa iyo meesha la yiraahdo Jalalaqsi iyadana howl fiican ka dhacday wadooyinkaasna si loo xaqiijiyo isu furnaanshaha labada gobol waxaan xaqiijinay inay isu furan yihiin labada gobol wax dhiban aysan ka jirin Iskri Ali Raage warbaahinta qaranka Buulaburde